أولا السلام عليكم مركود waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka bacda salaam maanta videogan kan waxaan doonayaa inaad ku tuso qaabka loo sameeyo loogada app-ka saaran sida aad ku aragteen thumbnail-ka videogan waxaan adeegsan doonaa laba application oo kala ah Wild Animal Photo Editor iyo Pixel Lab markood waxaa u baahan inaad ka soo qaadato application-ka screenshot waxaan soo furanayaa app-kan TubeBuddy sida aad ku aragteen thumbnail-ka videogan waxaan ka qaatay screenshot waxaan ku hormari doonaa application-ka Pixel Lab hadda uma baahni background-kan waxaan iska leeyahay transparency si aan u soo gashto app-kii aan ka soo qaatay screenshot waxaa leeyahay plus from gallery waxaan tagayaa qaybtaani dhex si aan u tirtiro kalarkan wet-ka ah waxaan leeyahay erase color waxaan u baahanahay hadda inaan keensado kalar guduud ah waxaan leeyahay plus shape waxaan saaranayaa kalarka guduudka ah si aan ugu dib mariyo kalarkan madow waxaan leeyahay to back markaan soo sameeyo intaan waxaan leeyahay save to gallery waxaan imaanaynaa application-ka Wild Animal waxaan leeyahay start create new marka si aan ugu tirtiro background-kani balaaga ah waxaan taabanayaa kalarkan u baahanahay inaan tirtiro tusaale ahaan background-kan waxaan leeyahay down waxaan saaranayaa background wet ah waxaan leeyahay marka save waxaan marka lagu soo laqanayaa application-ka Pixel Lab waxaan leeyahay plus from gallery waxaan soo tirtirayaa marka hadda kalarkan caddaanka ah waxaan marka leeyahay erase color wuxuu si toos ah noogu tirtiray kalarkii waxaan leeyahay marka save to gallery haddii ay tahay markii ugu horeysa aad soo booqato kanaalka Birimatage kanaalka wuxuu kaa codsanayaa inaad subscribe gareyso lana wadaagto asxaabtaada waxaa idin leeyahay daawasho xigta.